بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن دعوة ضيال كسر دعوة برنامج كني دبك هذا القيب توحن كجاه اللي دونا ما كجاه ورهم الدونا والسير كأمنية الدولة جبلات كجلمدوج أحمد معلن فقي وقرال كوبان صاري أيها وحى وكجاه الله أرمها شركة دوسا مراب وحنيجي دونا نحر كقرال كيسة يجود هامبا أرمه لحريري شركة سير دوسا مراب جمع سودو وسير أحمد محوك الله وزير أحمد معلن فقي وزير كأمن الدولة جبلات كجلمدوج وحى وكهل شركة دوسا مراب marxaladda uu ku soo hagaagay iyo maaragtay tuhun ilaa shalay iyo daraadba maaragtay la wareejinayay oo ku saabsan in maamulka galmudug uu yar maaragtay dhinac u janjeero oo maxaan ku dhahdaa to sababta baaqashada madaxweynayaashii Puntland iyo Jubaland ay sabab u tahay maamulka Puntland oo qaabkii dhexdhexaadnimada ahaa ee wax ku hogaaminayay maaragtay meesha yar maaragtay dhinac uga ciiray marka wuxuu muujiyay ninka la yiraahdo Ahmed Macalin Fiqi yani dareenkaas ama maaragtay aragtidaas oo waliba si taxadar leh uga hadlay wuxuu sheegay in maamulka galmudug uu isagu gogasha dhigay mas'uulna uu ka yahay dhexna uu u yahay maaragtay to dhinacyada maaragtay gogasha uu u dhigay balse isagu maamul ahaan mowqifkiisa uu xaq u leeyahay oo dhinac uu doono uu raaci karo soo garan laakiin gogasha uu dhigay dhinacyada uu gogasha u dhigay inuu dhex u yahay laakiin mowqif ahaan siyaasadiisa uu xaq u leeyahay inuu isagu maartay dhinaca uu rabo uu raaci karo laakiin maxaan ku ilaahdaayo to aragtida kale ee shakhsiga ah waa gooni laakiin ka maamul ahaan buu yiri ama dawlad goboleedka galmudug gogashii ay dhigtay ee dhinacyada Soomaaliyeed ay u dhigtay waxa weeyaan sidii ay ugu dhigtay ugu taala waxaana rajo badan ka qabnaa in dhammaanba hogaamiyayaasha Soomaalidu ay isugu yimaadaan meesha laguna jeeyo siyaasadii maxaan ku ilaahdaayo to lagu gali lahaa doorashada in ugu soo foolle marka wasiirku wuxuu muujiyay xogaa maaragtay kala aragti duwanaantii inaguna aan ka hadlaynay ee maxaan ku dhahay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo xubno ka tirsan labada gole ee dawlad goboleedka galmudug oo maaragtay yar ku eedeeyay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor in hanaankii ay ku socotay qorshihii gogasha dhuusa mareeb uu wax ka bedelay oo maxaan ku ilaahdaayo to taasina wax ka bedelka ah ay keentay Puntland iyo Jubaland inay buska dabada la galaan oo ay maxaan ku ilaahdaayo to ka gaabsadaan imaanshaha iyo ka qaybgalka shirkii dhuusa mareebeed marka wasiirka Ahmed Macalin Fiqi qoraalka markaad fiiriso nuxurkiisu wuxuu muujinayaa in isbedel rasmi uu ku yimid mowqifkii dawlad goboleedka galmudug ee dhexdhexaadka ahaa soo garan wuxuu yiri waa marka la fiiriyo xaggan dhexdhexaad bay ka tahay haddana marka laga yimaado buu yiri mowqifka iyadoo ay xaq u leedahay iyadoo cabiri karto marka laga reebo buu yiri dhexdhexaad baan ka nahay buu yiri hawsheedeeda kale dhankii la doonaha loo turjunto dhinacii la raba loo qaado laakiin isagu wuxuu yiri shirka wadatashiga arrimaha doorashada iyo jahaynta siyaasadda Soomaaliya ee mustaqbalka okay marka mowqifka ay xaq u leedahay hadii uu kifila Soomaaliya oo kala noqdo dhexdhexaad ma noqonaysa waa mowqifka iyadu gaar u yahay mugti laakiin yoonka villa Soomaaliya aan maaragtay ugu hiilinaynin yay reer galmudug maamulkeedu waxay u arki karaan in qorshaha laba qorsho baas garab yaala moogtahay kala doorashada iyaga la soo moogid kay u arkaan marka in mustaqbalka marka haday kuwan hada shirka diidan raacaan xaq bay u yeelanayaan ku xaqda raacaan haday kuwan xaq raacaan laakiin waxaan loo arkin in aysan aragti marka dhexdhexaadnimada qaadaya hadii dhexdhexaadnimada waxa qaadaya mowqifkan iyo kala shakiga iyo kolkii hore yimid baa wuxuu ku yimid madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor shirkii jaraa'ida uu qabtay iyo shirarkiisii magaalada Muqdisho uu kula yeeshay maxaan ku ilaahdaayo to mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda federaalka gaar ahaan agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ballanqaadyadii la sheegay maamulada maaragtay in loo sameeyo iyada oo isaga loo sii marayo isagana lagu yiri waxaad maaragtay xaq u yeelanaysaa inaad keensato ra'iisul wasaare galmudug ka soo jeeda oo walba ninka adigu aad ninka farta aad ku fiiqdo yaa maxaan ku ilaahdaayo to yaa laga dhigayaa iyada oo isagana marka laga rabo in uu maamulada ka soo dhaadhiciyo maxaan ku ilaahdaayo to in villa Soomaaliya muddada loo kordhiyo hay'adaha dawladda oo uusan muran ka imaanin arrimahaasi ayaa waxay marka meesha ka saareen
in loo arko maamulka galmudug inuu dhexdhexaad yahay way maamulka galmudug mowqifkiisa waxaa sheegaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ama dhexdhexaad ha ahaado ama iyagu mowqifkooda saxda ah ee rasmiga ha sheegaan laakiin madaxweynihii baa jooga wasiirkan amni baa loo diray maxaa isaga siyaasadda iyo shirki iyo mowqifkii galmudug inuu sheegay maxaa isaga waxaa geliyey meesha waxbaa ku jira khilaaf baa meesha ku jira shalay waan sheegnay wasiir axmed macalin fiqi iyo wasiirka dekedaha anu magaciisa ma garanayo baalkii wuxuu ahaa ishaag shooriye haa labadaa nini aragtidii kulankii ay yeesheen maxaanku idhaahdaa golaha wasiirada ee dowlad goboleedka galmudug ay yeesheen yay kaga hor yimaadeen madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor shirkiisi jira haa waxay ku yidhaahdeen hawshan annaga hawl noo taalla ma aha annaga gogol baan dhignay mowqifkeenna waxaan xaq u leenahay marka la gaadho waktigiisa inaan soo bandhigno soomada garan laakiin shirkii oo aan laysugu imaanin dadkii shirka loo dhigay oo aan imaanin in aad shirkii wuu furmay taa annaga bahdil bay nagu tahay waxaan kaa yeelanina ma aha yacni adayna kuu taallaa ee annaga kugulama soconno shirka ayaa loo qabtay waxaa loo qabtay afar isku aragtiya looma qabanine maamulada soomaaliya ka jira oo dhan baa loo qabtay inaan keenno ila innagaa gogasha dhignay mugti nin durbaan qaatay ilaaq dalbay inaan keenno yaa waajib inaga saaran yahay kismaayo soo qancin iyo maxaan ku dhahay garowaba haa miiskaan soo fadhiisan aan dhahnaa waxa aad qabtaan kaale meeshan ka sheegta laakiin shirkii waa furmay kaale nagu soo biira ninkii awal horeba wax tabanayay intii aan wax kala tabanaynin wax maaragtay isla wadayna meeshan ay joogtaa taana kuguma raacsanin baa layidhi adigu waa lagu kala booday halkaas mowqifkaas ninba dhinac buu ka arkay ilaa aragtida waa lagu kala duwanaan mogta middan marka uu ka hadlayo wuxuu kala saarayaa ninka la yidhaahdo axmed macalin fiqi wuxuu kala saarayaa oo uu banaanka kala marinayaa aragtida maamulka galmudug iyo aragtida madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor oo wuxuu yidhi aragtida maamulka galmudug uu xaqa u leeyahay buu yidhi marka laga reebo dhexdhexaad baan anagu ka nahay dhexdhexaad baan ka nahay buu arrimaha meesha yaalla axmed cabdi kaariyana waa shaksi ka mid a maamulka hoggaanba ha ahaado marka halkaa waxbay iftiiminaysaa waxay iftiiminaysaa haa in aan aragtida ilaa iyo hadda lagu midoobin oo maxaanku idhahdaa madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo nimankan maaragtay wasiirada ahaa ee maamulkiisa ka tirsanaa xurguftii ka dhex maaragtay bilaabatay ee shirkiisii jaraa'id ka dhalatay in maxaanku idhahdaa weli ay halkii taagan tahay marka wuxuu yidhi maamulka galmudug maamulka dowlad goboleedka galmudug marka laga reebo mowqifka ay xaqa iyagu u leeyihiin arrimaha siyaasadda ee meesha taagan dhinacna garabka kuma saarayno dhexdhexaad baan ka nahay labadiisa riyanaysa annaga laakiin wixii qaybtanada ah waa gooni annagu marka gogashaan mas-uul ka nahay annaga gogashaan mas-uul ka nahay mowqifkanagana marka xilligiisa la gaadho yaan sheegaynaa haa laakiin hadda in maaragtay xaggana u dhinac bay nala jireen oo haa uun dusha naloo saaro maxaa ku idhahdaa aragti shaksi ka mid a maamulka in maaragtay maamulkii galmudug oo dhan loo xambaariyo ma yani meesha kuma jirto okay waxyaabaha kale uu yidhi waxaa ka mid ahaa marxaladda lagu jira marka la fiiriyo waxaa loo baahan yahay in isku tashi iyo tanaasul iyo wada ogol looga gudbo shirkana la wada yimaado ka waran arrintaas ma saameyn ma ku yeelan kartaa nimankii shirka diidanaya ka maqnaa horta nimankaa shirka diidan dee way ku khasban yihiin inay tagaan waa khasab horta mar kale shirka dhuusa mareen waa la isugu wada tegi intay dooniba ha qaadatee sababtoo ah beeshii caalamka dalka soomaaliya dad baa xukuma sooma garan dalka soomaaliya dad baa xukuma dadkaasina ma aha dadkan meesha maaragtay ku wareegeysanaya ma aha ee is haysta kuwa aan iyagu is haysanina dusha kala socda oo kuwa iyagu madaxa isu gelinaya kuwaasaa xukuma kuwaasaa isku khasbaya in ay meesha isugu yimaadaan okay kuwa marka laga yimaado axmed iyo dani miyaan xaq loogu lahayn inay xurmeeyaan gogoshan iyo reer galmudug iyo maaragtay dadaalka ay shacabka iyo maamulka galmudug xaq baa loogu leeyahay laakiin waxay u arkeen in iyaga lagu minjaxaabinayo meel aad og tahay maxaanku idhahdaa waxa ka socda waxa aad og tahay waxa ka socda iyo maaragtay yani gudcurkii fadhiistay fartaagaa la sheegay baa la yidhi mogta ya meel cidlaa keliya hadaa intaad tagto wax sheegto warkaas wuu un soo bixi meeshan xog rasmi aha la hayaa waa la is og yahay waa la is og yahay haa kolkii horeba way tageen oo iyadoo maaragtay ciidamo uga horreynin yay tageen soo ma ahayn oo intii la ogaa ay joogeen oo wax walba oo qorqoor uu yidhahda ay ugu hoggaansamayeen oo uu intaas maxaan ku idhahdaa kolba uu mus ka bixinayay
hadda waxaa weeye meeshan haddii la tagana waxaa weeyaan ilaa iyo xad way adkaanaysaa wax natiija inay kasoo baxdo sababtoo difaac bay ku jiraan hadda deni iyo ninkii la yidhaahdo axmed madoobe ha kuwana balen b-na wuu kasoo balen a baa kasoo fashilmay balen b baa hadda la sugayaa balen b-na kuwan way og yihiin oo hadday meesha tagaan wax rasmiya oo laysku og yahay oo maxaan ku idhahdaa maya wax rasmiya oo laysku og yahay oo inay fulaan ay khasab tahay waxaan ka ahayn kuma fadhiisanayaan meesha marka meesha laisu tago kow waxay ka hor imaanay wax cod la yidhaahda in la qaado sideedaba heshiis siyaasadeed in la gaaro in far laysu taago oo la yidhaahdo aan intaa u codayno aan xagga u codayno nin walba wuxuu rabaa meeshiisa inuu mara moogta adinkana wax kasoo tanaasula annagana waxbaan kasoo tanaasulaynaa haye farmaajo muddo 6 bilood ha loogu daro ama hal sano ha loogu daro haye halkaasna waa loogu daraya sooma haa heshiiska doorasho dadban baa dhacaysa qaabka ay u dhacaysana guddi baa loo saari waxa kaliya lagu heshiin karaa waa waxaas laakiin arrintu waa masiiri wey mar hadday masiiri noqotona cod ma jiro waa in la isqanciyo haa waxaa weeyaan hadda arrintu arrin masiiriya weeye doorashadu waa mustaqbal weeye waa hogaamintii ummadda la rabaa in maaragtay ay kasoo dhex baxdo meeshan mar haddii ay masiiri tahay oo qodobo masiiriya laga wada hadlayana cod la isu qaadayaan jiraynin qolana waxaa rabaa inta meesha la isugu yimaado in la yidhahdo mar haddaynu meesha isugu nimid cod ha la qaado ha cod ha la qaado codka ha lagu kala baxo halka ha lagu socdo kuwan waxay taagan maya waa masiiri waxaan ka hadlayno waa wax masiirka qof kasta oo Soomaaliya taabanaya ma aha arrin siyaasadeed oo bari laga gudbayo marka 5 sano ee soo socota ama 4 sano ee soo socota masiirka qof kasta oo Soomaaliya qorshihii taaban lahaa ama siyaasadii lagu haagi lahaa yaan ka hadlaynaa waa inaan wadar ogol iyo isku maaragtay mowqif iyo muwaafaqo aan ka yeelano ma marka labadan nin ma doonayaan totally ba wax la yiraahdo cod in la qaado ee waxay rabaan mowqif dhaba oo siyaasadeed inta laga heshiiyo oo haddii iyagu waxay ogol yihiin ugu yaraan in wax loogu daro maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo hay'adaha dastuuriga ee dawladda ku daristaasi inaysan noqonin mid ku kooban dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka in xukuumad la helo ha dawladda ku daristaasi ma noqonayso dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada mid ku kooban siyaasi kasta oo Soomaaliya waa inuu ku qanacsanaado oo yimaado meesha oo wax la isla ogol yahay oo wadar ogol ah taa kale way u dad badsanayaan moogtay farmaajo u dad badsaday markii iyaguna waa dad badsanayaan farmaajo inta u dad badsaday oo isku diiday maamulada macalgoolkii banaadir soo raacay ay you note soo dhigay iyo waxa arkay oo kaligood meel taagan sidii ma aragtay sidii bahalka la dhihi jiray qodowga meel ilaa xamar baa la yiraahdaa qodowga bahalkan laba lugood ku istaaga qodowga midna xaggaas oo kale ku istaagay waqti midna xaggaas oo kale shurunshuur baa la lahaa aan maray yaa midba meel ka istaagay waqti mid walba koox wata waqti midba meel ka istaagay waqti labadooda waxay arkeen uun maaragtay midba sidii qodowgii meel uu ka taagan yahay waqti sida kadafkii ha iyaguna marka hadda waxay rabaan inay u dadbadsadaan markii la yiraahdo mucaaradka iyo axsaabta mucaaradka markii la yiraahdana de waxa weeyaan taageero xoog leh haystaan farmaajana wuxuu diidayo waa waxaas weeye wuxuu rabaa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu inay meesha wax isla gaaraan oo waliba wax siyaasadda waxa marka lafteeda Soomaaliya kala daacad kama aha madaxweynaha nina daacad ma hadii nina daacad ma aha ma aha Axmed Madoobe daacad oo raba qaranka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed xasiloonideeda yaa ka shaqeynaya oo shirkan u diidan marnaba maskaxdayna gelin farmaajo uu danaynaya maxaan ku dhahay qaranka Soomaaliyeed oo raba in horumarka iyo dawladnimada Soomaaliya ay xoogaysato u diidan maxaan ku dhaahdaa to qorshahan ay Axmed Madoobe iyo kii kala wataan marnaba niyadaada aysan gelin meeshan dan shakhsiyeed baa la isku ereenaya kulligood dan shakhsiyeed ha dan shakhsiyeed wataan nin dan Soomaaliyeed hal maalin la isku khilaafeen ama Soomaaliya ma joogteen xalanana lama dhoobnaaday hadii dan Soomaaliyeed la wado waxa hubaal ah nin walba dantiisa yarta uu beereenaya farmaajo wuxuu rabaa hadii ay noqoto doorasho dadban in la aado hal sano 6 bilood in lagu daro intaas markay isku huba intaas isku huba Soomaaliya hadii kale cod shacab badan oo raba kursiga inay ka riixdaanna way maalmihii bay tirsanayaanba
8 February ku fogaatay ها maalmo ay tirsanayaan ba hadda qaar Shariif Xasan Sheekh Aadan golihiisa wasiirada la sii qoraya ma garatay rag badan baa sugila oo intee xamar tagaan raba maalinka 8 February inay xaflad inta qabsadaan dhahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ma aha eraygan aan leeyahay eray aan iska leeyahay ma waa dhab weeyaan rag badan baa sugila haddii aan la gaarin heshiis lagu maartay loo dhan yahay heshiis loo dhan yahay oo markii heshiiskaas la yiraahdo waa la gaarahayaana rag badan baa isku imaan doona rag badan oo waliba colaad gaar ah farmaajo u qabo oo raba inay isaga aan marnaba aqbalaynin maxaan ku dhahay inuu meesha soo joogo rag badan oo karkaarka weydaariye baa jira moogta ragii oo dhan baa nin walba wuxuu rabaa in uu si maaragtay oo ku xumeyn ay ka muuqato in uu maaragtay u muujiyo inuu yahay madaxweyne mar haddii dheedku ka dhamaado maxamed cabdullaahi farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo buu noqon madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya qurux badnaateen in madaxweynuhu uu niyad samaan badan muujiyo oo kuwan intuu isugu yeero diidan iyo kuwan la jooga iyo waxa dhan oo iyaga uu heshiis rasmi ah la gaaro iyaga oo hal mid isku og ay u yeedhaan asxaabtii kale siyaasadda iyo raggii kale maartay siyaasadda kula loolamayay oo iyagana la yiraahdo annagu haddaan nahay dawladda dhexe maamul goboleedka waxaas isku ognee nala qaatay idinkuna ma markaad fiiriso farmaajo horta nin weyn wadkii dil lahaa waa yaqaanaa moogta farmaajo waxyaalaha uu geysto dhan waa og yahay dadka nimankan siyaasiyiinta ah oo dhan mid uu xiray iyo mid uu dharbaaxay iyo mid uu masaafuriyay uu ka dhigay moogta hal mid oo asxaan uu sameeyay horta ma jiro dadku waa Shariif Xasan iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo maxaan ka Sheekh Shariif iyo mid uu san horta dhibaato u geysan ma jiro kuwan caloosha u buuxda ma شريف قوي لو ديار ذكر شريف شيخ أحمد ها شيخ شريف هل نن أو سياسية أو سنهرت قريب وجيسن مشروع نوين مركب ودك دلها واي قنا مركب واحد وفر استمر ما ديار معها تتصور فرساني هل نن مرتي وسلامتك قالها يكون مشروع كأغير ومتك بلان وبحيدي كأغير waa ku ballanka uga baxay laakiin raggan waa siyaasiyiin waxa siino xukunaa waa la dareensan xukunka ma taladii Soomaaliya ee uu hayay ayaa qaarkood iyagoo xasaanad loo madaxweynayaal maxamed xasan sheekh maxamuud iyo ninkii farmaajo maanta waa isku mid labada qaranka Soomaaliya mushaarka siiya markuu hadda farmaajo meesha ka baxo booska xasan sheekh maxamuud oo kale u tagaya mushaarkiisii buu qaadanayaa oo bar ah dawladda amaankiisa sugaysa xildhibaan buu noqonayaa xasaanad buu yeelanayaa Soomaaliya garan هذا حلك وهي أوامر تيسون بين سعودنا حسن شيخ محمود لكن ومدحونا سومالي وحزانات له وعن لها الذكرين حلوانات دينا كاملة وحلوانات دينا كاملة ديارات دي ولا السعودية بلا طبعين هو ذا الوقر حيو هو ذا كوب بربرتو مركب الويناء السعودية من فتحات وكذا عادي صار قرن حلوانات مركب نمان كان سياسيين تا فرماتش ويسوق جهاي سايس كاو نمان كان مركب واي هراي سوى ذا قلين ورجو rag baa markaas macquul ma aha muddo sanad iyo bar ku dhawaad rag baa qoordiin leeynaya xamar ku soo dhici lahaa kuwii baa marka intaan u yeeran la fariisan faan weyna aad baad ma ugu dambeyn hadalka Axmed Macalin Fiqi maxaa laga qaadan karaa hadalka Axmed Macalin Fiqi waxa laga qaadan karaa marxaladda adag ee shirka dhuusa mareeb uu galay iyo sida maaragtay mugdi ugu muuqdo shirkaasi si socoshadiisu oo rajo badan هذا اللي جماعة قبوا إن مارتي شركة سي وجوليستو صابتو لا دنيا يسوق إيمانيسا هديبة أي مدان دنيا أيضا عن مقلة هي هذا ويتجي دوانان هديبة أي تجان النقطة إن تكتو أو أي تجان ماشى حاولين وحيك ربان وحى يجوا أي وطن إنه هيرجلو محمد عبد الله فرماتنا وحماش وتشوجا وحى يسوق ربان إنه هيرجلو سؤال قريب باش عالم هذا مدحونهم ما قام الله بسوير زمان مالك أفراد بان مالك ده وحول الله نقدنا ما يقانو wuxuu la joogana ma yaqaan sababta baarlamaankii waxaad ka keentay inoo kan baydhihi moogtay dhuusa mareeb isaga moogtay wixii dhuusa mareeb kala imaado waxba kama keenin mursal baxaa ku sugay waxa meesha kama keenin aad baad ma wax ka keenin maxaad noogu sheegaysaa oo taala moogtay marka waa inuu meesha wax ka qaado oo geeyo meesha oo yaraan hal sano aad baad ma santahay hal sano oo maxaan ku yiraahdaa muddo kororsiya waa inuu geeyo meesha hadaan la geyninna markaas ay halis ku jiro in mooshin laga keeno wax ka aad baad ma santahay jaamaco way hay daawadayaal bal halka aan ku joojino falanqeyntaas si kooban aan ku sameeynay qoraalka uu soo dhigay wasiirka amniga ee dawlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Macalin Fiqi ku saabsanaa shirka dhuusa mareeb 3 iyo xaaladaha ku gadaaman tan iyo kulan dambe waa jaamac iyo nuur idin leh
fi amaan illah